ugu dambeynna ayaa wafdiga loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada Puntland halkaas oo ay si wada jira saxaafadda ula hadleen madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana ugu horreyn hadal soo dhaweyn ah ka jeediyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas maanta caasimadda Puntland ee Garowe ku soo dhaweyno wafdu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo wafdu culus oo ka kooban xukuumadda iyo baarlamaanka aad ayaan u soo dhaweynaynaa wafdiga Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad u adag oo u baahan wada tashi in laga suubiyo Soomaaliyana marxaladda ay marayso laga gudbiyo meesha ay istaahishana la gaarsiiyo si qarannimadii iyo midnimadii iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed mar walba loo horumariyo loo adkeeyo wafdigu muddo dhow casho ayuu la joogi doonaa wax badan oo ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ayaanu ka wada hadli doonaa Cumar waxaan maranayaa markii u horeysay isaga oo ra'iisul wasaaraha u yimaado Garowe hadda ka hor Puntland waa yimid ra'iisul wasaaraha laakiin gaalkacayo iyo tagay marka waxaan leenahay adoo ra'iisul wasaaraha u horeysay kusoo dhawow caasimadda Puntland wafdigana waa soo dhaweynaynaa waqti badan ayaan soo heli doonaa insha Allah aan kaga hadli doono arrimo tiro badan oo Soomaaliya iyo marxaladda ay marayso Xuseeya marka aad baan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaare soo dhawow ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa isna dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa Puntland wuxuuna xusay inuu kulamo la qaadan doono madaxda Puntland inta uu joogo Garowe وبقالنا يعني runtii sida loogu dadaalo xasiloonida iyo maaragtay ammaankiina oo galeeda ka jirta halkan runtii waxaan u imaanay halka kan inaan wada tashi iyo soo soo sheegay waxaan rabnaa hadii in wadanka ka ogtiin awda kulli dhexdoon waxa loo socdaa heegsi in dalka kan dhameystiro dastuurkiisa in dalka kan oo noqdo dal xala xeer iyo sharci xala leh ونقدر سيدي وخصوصا نقولنا باش عالم قومي نقولنا مرخلة إن ضل آدي قول مري مركو حان يردنا وتشير بدنا دير إلى هذا وحان رجينا إن شاء الله وحياة بدنا إن كوجل فين أنت نجوا حلقة أنت شرب الموت هاي إن سوق إنه إن هذا الدرو ورم سوق شيء أمرك يقول سنة الزال على هذا الحلقة وأنا كفر أحسن هاي وأنا رجينا دير أنت نجوا إن سعر إنه إن دود كنا ضد شعب حلقة إن شاء الله أصر ونقولنا أنه ركبوا إحنا ما رختي يعني حيابه متلوين يعني مش هنقعد إن شاء الله. رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي سرماكه ayaa safarkan wuxuu noqonayaa safarkiisii koowaad ee ku yimaado magaalada Garowe tan iyo intii uu qabtay xilka ra'iisul wasaarenimo ee uu hadda hayo Cabdi Xasan Awowe